السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله يقوانا السلام وانا ولاشن ليلى لايف ستايل سودو هذا وينو iyo markale muuqaal cusub okay maanta maxaan rabaa inaan sameeyo maanta reaction ayaan rabaa inaan ka bixiyo video yiraysa runtii gabar walaashay dhibaato ku dhacday marka ila daawada idinkuna waatan intaan ka maqnahay waan mahagane manfaciyo hurdaba wayska maanacee hooyoy macaan mama aragtida nagu dhacay la duusiyo ma yahayn waxaan mar kale maragu qabsanaya bulshada reer Somaliland oo si fiican u taqaana axmadnimada iyo anshaxumada boolisku kula kacaan cidii ay haleelaan anshaxumadooda dadka si fiican u yaqaaneen la kulmay iyo arxan daradooda ayaan marag cad u qabsanaya haddaan askari dabanaaniyay 24 saacadood ma xidhnaan laha haddaan askari dabanaaniyay sibiqo la doonay in xarigaygu baxo meel lagu soo deyn lahaa hadal iyo wax la yidhi waxba laguma dhaafee nabarada aanu geysanay iyo dhaawacyada aanu geysanay waanagan hadlaynaa halala hadloo hana la tuso oo ehel baanu ka dhalanay loo keeno anaga laakiin sharka dawladana lagu dilay aniga bahay waxa uu kamid ahaa markii qaranka Soomaaliya qaranka ciidankii qaranka Soomaaliyeed markii Soomaaliya burburku ka dhacay aabay wuxuu kamid ahaa ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM 1994 ayaa aabay aniga Hargeysa lagu dhex toogtay waa ayaan daro in maanta mar kale aniga niman calool waaweynta meel isu soo kay taagaan oo darajooyin isu soo kay sudaan ay yiraahdaan 2021ka 2026 sano kadib koobiyo 10 bilood baan jiray maalintii aabahay la dilay 26 sano kadib dilkii aabahay in la yiraahdo iyadan nasiib wanaag hadaan u xabad ku dhufan Somaliland waa beelay isu yimid qaran haduu jiraan cadaaladdeedaan heli lahayn la maacmaacay intaasoo meelood maxaan ku dhaday intaasoo waxa la yiri laakiin waxaan leeyahay Faisal iyo nimankii ag taagnaaba waxaan leeyahay maqaar saar waxa dar ku lumi karaa ma jiro wixii geysateen ee shaarka dawladda ku geysateen idinka maxaan ku dhaday ka jawaabi doona anigu laamaha cadaaladdan ku maqnahay kamana hari doono wixii aniga iyo waliba hooyaday nagu dhacay wax maaragtay garsoorka la waafajinaya iyo wax inta la yiraahdo in lagu baraq jabin karana ma aha anagu dhibanayaal baan u nahay aniga hooyadayba waa la dilay shaarka dawladdan lagu dilay inta shicibna ما شاء الله تبارك الله ولا لهيغا ولا شيء وكهذا شيء ما شاء الله تبارك الله وحن له ولا ما شاء الله تبارك الله geesiyada ayaa tahan lahay walaal macaanto hore u soco noolow baan ku leeyahay cadawgaagana alla hajibiyo runtii gabdho badan oo Soomaaliya oo la dilay oo baqay ayaa kugu dayanayaan aaminsanahay ama xaqooda la duudsiiyay laakiin waxaan u maleynayaa inaad tahay shimbir Ilaahay u soo diray hablaha Soomaaliyeed maalin bay Ilaahay shimbir buu soo diraa marka walaashay waxaan leeyahay maanta shimbir baa tahay waxaan leeyahay walaalle adiga iyo hooyaba Allah inii boogadhayo insha Allah bidmillaahi kariim iska dulqaado maalmaha kamid ah ayaa waxa dhalan doona geesi Soomaaliyeed maalmaha kamid ah ayaa waxa dhalan doona askari ku difaaca Soomaalinimada dirayska ee aan ku garaacin gabdhaha Soomaaliyeed una adeegsan diraysku xiran yahay haddaynan dhiman waynu sugaynaa waynu arkaynaa insha Allah ilaahayna waynu tuugaynaa habeen iyo maalin hadaynu nahay gabdhaha Soomaaliyeed inuu ilaahay noo dhaliyo dawlad daacad ah oo u adeegta haweenka xuquuqdooda soo dhacsa xaqaaga walaal macaanto wanu ku garab taaganahay wanu ku taageersanahay ilaahayna ha ku boogadhayo insha Allah ilxun kuma aragto walaal macaanto laakiin waxaan u maleynayaa inaad tahay shimbir u soo diray ilaahay hablaha Soomaaliyeed koos waxaan ogahay hablo badan oo Soomaaliyeed in la dacdareeyo lana dilo haddana maxaa soo baxay ma taqaanin kuwa naxariista rayaal ah naxariista alla ka qaaday oo gabdhaha Soomaaliyeed
ku farxa dhibaatadooda, ku farxa oohintooda, ku farxa qaawanaanteeda. goormay ragga Soomaaliyeed ay ka dhiidhii jireen gabar oyda? sootii gabdhaha la isku dili jiray. ninkii gabar taabta sootii tallaabo sharciga laga qaadi jiray. maaha anu malaynayaa kuwa hadda waa u eke raggii Soomaaliyeed maaha. waa kuwa direyska u adeegsada gabar Soomaaliyeed aan gacantu qaban gacanta u qaada. waa kuwa siday rabaan ula dhaqma gabdhaha Soomaaliyeed. waa kuwa gabadha Soomaaliyeed oo quruxda leh wajigeeda bedelay, korkeeda kalena aysan soo dhigi karin social mediaha nabarada ku yaala. laakiin yaa jooga? allah baa jooga. yaa jooga? raxmaankaa jooga, midaan waxba ka qarsoonayn. xaqa haddii afka la qabto feeruhu ka dilaacaa. kuwa badan aan garanayo ayaa waxaa lagu dilay calanka Soomaaliyeed, ayaa waxaa lagu xiray calanka Soomaaliyeed. ma garateen? marka gabdhaha Soomaaliyeed meelay joogaanba way dulman yihiin. yaa u maqan? allah u maqan. yaa u maqan? geesi Soomaaliyeed bay dhali doonaan, gabdhaha dhali doona iyo aabbayaasha. wuu dhalan doonaa geesiga Soomaaliyeed oo shafka u garaaca gabar Soomaaliyeed, oo dhihi doona yaa taabtay, yaa la hadlay. gabdhuhu waa ka weyn. gabdhaha lama taabto. maxaa ini ku dhacay? aw naxariistii. miyaan hooyo ku dhalin? miyaysan ku nuujin? miyaysan caloosha kugu qaadin? ma geed baad ka soo baxday? miyaadan dhalin gabar adigu? miyaysan kula seexan sariirta? miyaysan ku farxad gelin? annagu dareemadaa ma lihin. ragga Soomaaliyeedna wanaag iyo sharaf baan u haynaa, iyo naxariis uu weynuhu nagu minaystay haddaanu nahay haween. mid kuu doono ha noqdo, qof dhiban ma eegi karno. idina maxaad keentaan? hadda waxaba soo baxay. waxaan u malaynayo inay waxaan maqli jiray beerta warta meen maqli jiray waxyaalo ka mid ah. yacnaha markay barwaaqadu dhacdo oo kale oo biyuhu dooxa galaan oo kale, meelaha oo dooxada ah ama ceelasha waa laga wada cabbaa. hadda maxaa soo baxday? kuwa u isticmaalaya gabdhaha Soomaaliyeed sida ceelasha. waxaan ogahay aniga gabdho 10 nin ay waxay rabaan ku sameeyeen. yaa aragteen oo ka hadlaya? no, hadday dhacday. cidina kama hadlayso. waa hooyo, cidina kama hadlayso. waxaan ilaahay inimaha baara ee wiilasha. cause why? cause hooyaan ahay, cause wiil baan dhalay, cause wiila dhashay, cause way dhalay. ma habaari karo wiilasha Soomaaliyeed. waxaan leeyahay hadii kallaa yaa rabbi, ilaahu noo soo hadee, ilaahu qalbigooda qoo, ilaahu naxariista geli ayaan idin leeyahay. intaad ku taagan tihiin gabdhaha Soomaaliyeed oo hooyooyinkiina, oo walaalihiina, oo habaryartiina, oo xaasaskiina, ragga ficiin ah oo shisheeyaha oo wadamadiina saas u soo ataagaya, qaybna idinka isku kiin adeegsanaya. niyow dalkiina dhacsada. waxaan rajaynayaa walaashay inay hesho xuquuqdeeda insha allah biidni illaahi kariim. waxaan leeyahay walaalo, allaha kuu boogadhayo insha allah biidni illaahi kariim. garabkaagana allaha galo. waan kula danqanaynaa,
waan kula xanuunsanaynaa waan kula jiranaynaa waan kula ooyeynaa adii hooyaba dhibta loo geystay ilaahay hooyaha caafiyo adnaha ku caafiyo insha allah biidni illaahi kariim waxaan ku salaamayaa walaashay qaali assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaali weyney wuxuu qabta walaashiin insha allah garab istaaga intii ku taallaa waa gabar marka gabar wixii loo geysto anaa la ii geystay I feel it waan dareemayaa waan salaamay bye bye